raashin karayihii aqliga badnaa iyo ninkii xoogga weynaa ee dadcunka ahaa. Beri hore tuuladaasi waxaa ku noolaa wiil dhalinyaro ah oo aad u firfircoon isla markaana aqli badan, kaasoo lagu magacaabi jiray Tahliil. Aabihiis waxa uu ahaa nin ganacsade caan ah oo hantiile ah, laakiin Tahliil ma doonayn in uu noqdo ganacsade sida aabihiis oo kale ah. Taa beddelkeeda Tahliil waxa uu aad u jeclaa in uu wax badan ka barto dhirta dabiiciga ah, sidoo kale waxa uu aad u jeclaa cunto karinta. Sidaas daraaddeed waxa uu alaaba jeclaa in uu u safro qaybo badan oo caalamka ka mid ah si uu u soo barto cunnooyinka dhaqanka ee ay cunaan dadka kala duwan ee adduunka. Maalin maalmaha ka mid ah ayaa waxa uu u yimid aabihiis isagoo fikiraya, waxaana uu u sheegay in uu ku guuleysan doono hamigiisa. Muddo kadib, Tahliil aabihiis ayaa aad u xanuunsaday, taasoo keentay in uu awoodi kari waayo in uu sameeyo wax dhaqdhaqaaq ah. Qofna ma garan karin waxa sababay xanuunkiisa. Isagoo dareemaya in uu sii dhimanayo, Aabaha waxa uu u yeeray wiilkiisa Tahliil isagoo ku yiri, wiilkayga Tahliil. Wiilkii ayaa ku jawaabay oo yiri, hore u soco oo ii sheeg aabba waxaad rabtid. Aabihii oo xaaladiisa ay liidato ayaa yiri, inta aan dhiman waxaan doonayaa inaan ku siiyo halkeed oo hanti oo weyn oo qiimo leh. Waxaad qaadanaysaa dhagadhagahan waa kuwa ka caawiya qoyskeena inuu noqdo qoys taajir ah. Aabaha ayaa u sheegay wiilkiisa in dhagahan ay ka caawin karaan inuu fahmo dadka waxa qalbigooda ka guuxaya. Aabaha ayaa halkaasi ku geeriyooday, taasoo uu aad uga murugooday Tahliil. Kadib geerida aabihiis ma jirin wax ku kalifaya in uu sii joogo guriga, waxaana uu go'aansaday in uu ku dhaqaaqo safarkiisa si uu u fuliyo himilooyinkiisa. Kadib maalmo badan oo uu ku safrayay dhul fara badan, waxa uu bartay waxyaabo badan. Waxa ugu muhiimsan ee uu bartay ayaa waxay ahayd sida uu qof naftiisa ku badbaadin karo iyo sidoo kale xirfadda cunto karinta. Maalin ayaa waxaa dhacday in uu Tahliil arkay geed weyn oo aad u cagaaran, kaasoo dhererkiisa madaxa la galay daruuraha. Waxa uu u soo dhowaaday geedka, kadibna waxa uu gartay in uu geedku yahay midka digirta oo aad u weynaaday, taasoo aad uga yaabisay. Tahliil ayaa waxa uu kula kulmay nin oday ah meel aan sidaas uga fogeyn geedka weyn, isagoo weydiiyey, waan ku salaamay, wax ma ku weydiin karaa? Odaygii ayaa ku jawaabay, waan kaa qaaday salaanta ee maxaad u baahan tahay? Tahliil ayaa warkii qaatay oo yiri, geedkaasi waxa u muuqdaa mid aan caadi ahayn oo aad u weyn. wax ma ka taqaanaa asal ahaanta geedkan? Odaygii ayaa ku jawaabay, geedkan waa geedka digirta oo muddo dheer ka hor la gooyey, hase yeeshee waa uu soo baxay kadibna waxa uu u koray si aan caadi ahayn ilaa uu ka gaaro daruurta. Tahliil ayaa ku yiri odaygii, maxaa halkaasi ku yaala? Odaygii ayaa isna ku jawaabay, wiil yar ayaa hadda ka hor waxa uu sheegay in qasri weyn uu ku yaalo daruurta korkeeda. ma jirto cid kortay geedka si loo xaqiijiyo sax ahaanshiyaha sheegashada wiilkaas. Tahliil ayaa ku yiri, ma runbaa? Odaygii ayaa isna waxa uu yiri, ma waxaad rumaysatay carruurta beentooda oo ah in qasri uu ku yaalo daruurta korkeeda? Odaygii ayaa goobta isaga dhaqaaqay, isagoo ku qoslaya wiilka dhalinyarada ah ee Tahliil. Isagoo naftiisa la hadlaya, Tahliil waxa uu yiri, geedka nuucaani ah ee mucjisada ah waa in uu meesha ugu sarreysa ku lahaadaa miro badan oo mucjiso ah. Sidaas daraaddeed waa in aan isku dayaa in aan koraa meesha ugu sarreysa. Tahliil ayaa durbadiiba waxa uu tagay geedka hoostiisa, waxaana uu eegay baaxadda iyo weynanka geedka, waxaana uu go'aansaday in uu koro geedka. Kadib waqti dheer, Tahliil ayaa ugu dambeyntii gaaray daruurta oo ah meesha ugu sarreysa geedka. Tahliil aad buu u yaabay markii uu arkay in qasri weyn uu ku yaalo daruurta dhexdeeda, waxaana uu yiri, runtii kaasi waa qasrigii. Markii uu nastay in xoogaa ah
ayaa waxa uu u jihaystay inuu u dhaqaaqo dhanka qasriga. Markii uu arkay naqshada quruxda badan ee qasriga, Tahliil ma uusan joojin karin eegista dhinacyadiisa. Tahliil ayaa si lama filaan ah waxa uu u dareemay in uu duulayo oo kale, laakiin waxa uu arkay in nin weyn oo xoog badan uu kor u sido. Ninkii weynaa ee xooga badnaa ayaa yiri, ma aanu dhadhamin hilib dad muddo dheer, haddaba caawa waxaa sharaf weyn ii ah inaad ku hoyato caloosheeda dhexdeeda. Ninkii weynaa ayaa durbadiiba Tahliil u soo qaaday kushiinka, waxaana uu ku xiray bir aad xabsi moodo. Iska badaa sidii uu u argagaxsanaa, Tahliil ayaa aad u sii naxay markii uu arkay ninkii weynaa ee xooga badnaa oo diyaarsanaya wixii isaga lagu cuni lahaa. Tahliil ayaa isku dayay in uu helo waddo uu ku badbaadiyo naftiisa. Nasiib wanaag, isagoo ahaa nin ku fiican xagga raashin karinta, Tahliil ayaa gaaray go'aan geesinimo leh. Tahliil ayaa ninkii weynaa ee xooga badnaa u soo jeediyay in uu caawa cashada isagu u sameeyo, isagoo ka dhaadhiciyay in uu samayn karo casho aad u macaan. Soo jeedintiisa ayaa aad u soo jiidatay ninka xooga weyn dareenkiisa. Tahliil ayaa xaqiiqsaday in uu haatan heli doono fursad uu ku baxsado, waxaana uu sii waday in uu aad uga sii dhaadhiciyo in raashinka uu sameeyo uu yahay mid aan innaba caadi ahayn. Ninkii xooga weynaa ayaa dhageystay hadalka Tahliil, isagoo bilaabay in uu labalabeeyo. Hase yeeshee waxa uu ka soo saaray xabsiga, isagoo u oggolaaday in uu u sameeyo cashada. Waxaana uu ku yiri, bal itus waxaad samayn karto haddii aad ku fashilanto inaad ii diyaariso casho wacan, halkan ayaad ku hoyan doontaa. Tahliil ayaa durbadiiba bilaabay in uu soo bandhigo xirfadiisa cunno karinta, isagoo miiska ka soo buuxiyay raashin aad u macaan oo kala gedisan. Tahliil waxa uu helay kalsoonida ninkii xooga weynaa. Ninkii xooga weynaa ayaa waxa uu bilaabay in uu cuno raashinka kala duwan ee uu diyaariyay Tahliil. Waqti badan kuma qaadanin in uu dhammaysto raashinka miiska ka buuxa, waxaana uu yiri, waxaad tahay nin karti badan, maanta wixii ka dambeeya halkan ayaad joogi doontaa si aad raashin igu kariso mar kasta. Haddii aadan arrinkaasi oggolaanin, hal doorasho oo keliya ayaa kuu furan, oo ah in aan ku cuno. Tahliil waxaa waajib ku ahayd in uu aqbalo si uu u badbaado, waxaana la siiyey oo la dejiyey qolka ku dheggan qolka ninka xooga weyn. Goor dambe oo habeenkaasi ah, Tahliil ayaa soo dhuuntay si uu u helo waddo uu ku baxsan karo. Si lama filaan ah ayaa waxa uu u arkay qol qarsoodi ah oo ku yaala qasriga dhexdiisa, halkaasoo uu kula kulmay gabar ooyeysa oo fadhisa tiirka shubka agtiisa. Kadib markii uu arkay dhaawacyo badan oo ku yaala jirkeeda, Tahliil ayaa u yimid gabadhii, isagoo weydiiyey waxa ay tahay iyo meeshan waxa ay ka qabanayso. Kadib markii uu arkay dhaawacyo badan oo ku yaala jirkeeda, Tahliil ayaa u yimid gabadhii, isagoo weydiiyey waxa ay tahay iyo meeshan waxa ay ka qabanayso. Waxaan ahay amiiradda boqortooyada daruuraha, ninkan xooga weyn ayaa inoo yimid, kadibna waxa uu nagala wareegay boqortooyadii kadib markii uu dilay aabbahay oo halkan boqorka ahaa. Gabadhii oo sii hadlaysa ayaa tiri, isaga ma doonayo in uu i qasho, markasta waa uu i yimaadaa, marmar waa uu i garaacaa, marmarna raashin ayuu ii keenaa. Fadlan wiilyahow dhalinyarada ah, halkan iga badbaadi. Tahliil ayaa durbadiiba dareemay in gabadha waxa ay ka hadlayso ay run yihiin, waxaana uu u sheegay in ay dhab ka tahay in uu doonayo in uu badbaadiyo, isagoo intaasi ku daray
in ninkan xoogga weyn uusan doonaynin in ay halkani ka tagaan si nabadgelyo ah. Maalintii xigtay, ninkii xoogga weynaa waa uu baxay si uu u soo raadsado raashin caawa loo kariyo, mana soo laabanin ilaa laga gaaro habeenkii. Tahliil ayaa goor hore casho wanaagsan u sii diyaariyey, isagoo miiska ka buuxiyey cunooyin kala duwan. Waxaana uu bilaabay ninkii xoogga weynaa in uu cuntadii miiska saarnayd uu boobo oo uu aad u cuno. Tahliil ayaa durbadiiba dareemay in ninka xoogga weyn uu maleegayo dhibaato isaga ka dhan ah. Waxaana uu sidoo kale fahmay in awoodda iyo jirka weyn ee ninkan xoogga weyn uu ku tashanaya ay tahay timaha dahabiga ah ee ku yaala dhanka dambe ee madaxiisa. Laakiin ninka xoogga weyn ma ogaan karin in Tahliil uu fahmay waxa maankiisa ka guuxaya. Goor sii horeysay, Tahliil ayaa raashinka ugu daray ninka xoogga weyn waxyaabo hurdo leh, taasoo keentay in uu ninkii weynaa uu durbadiiba hurdo la dhaco. Markii la gaadhay habeenkii saqda dhexe, Tahliil ayaa soo dhuuntay isagoo soo galay qolkii ninka xoogga weynaa. Waxaana uu halkaasi ku arkay ninkii xoogga weynaa oo aad u hurdaya. Durbadiiba Tahliil waxa uu bilaabay in uu tinta dahabiga ah uu ka gooyo, taasoo keentay in ninkii xoogga weynaa uu waayo awooddiisa, isagoo isla markiiba noqday nin tabar yar oo daciif ah. Tahliil intaasi ugama harine waxa kale ee uu sameeyey in uu tinta ka xiiro si uu uga hortago in ay mar kale u soo baxdo. Markii uu xaqiiqsaday in ninka wax dhibaato ah uusan geysan karin, Tahliil ayaa u tagay gabadhii si uu u badbaadiyo. Tahliil ayaa u sheegay wixii dhacay, isagoo gabadha u soo kaxeeyey oo keenay qolkii ninkii xoogga weynaa si ay u xaqiiqsato waxa dhacay. Gabadhii oo aragtay mujrimkii dilay aabaheed ayaa dareentay in haatan uusan wax dhibaato ah u geysan karin. Gabadhii ayaa dharbaaxo la dhacday ninkii, taasoo keentay in uu hurdadii ka soo kaco. Ninkii waxa uu ka naxay in awooddiisii ay luntay, isla markaana aysan tintiisii u soo bixi doonin. Waxaana durbadiiba uu iska tuuray dariishadda, isagoo halkaasi ku waayay naftiisa. Markaasi kadib waxaa halkaasi ku hadhay dhibaatadii ninkii xoogga weynaa. Qasrigiina waxa uu noqday mid aad u qurux badan sidii uu horay u ahaan jiray oo kale. Ugu dambeyntii, Tahliil waxa uu guursaday amiiradii, waxaana uu noqday boqorka cusub ee boqortooyada daruuraha, halkaasoo ay uga bilaabatay nolol cusub.